munaasabadda qaran ee 26 Juun ee xarunta qasriga madaxtooyada ka socota ayaynu weli daawadayaal ku guda jirnaa wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta aan afayeenka xukuumadda Axmed Yaasiin Shaqaale ayaa halkan la jooga wasiir soo dhawow sanad guuro wanaagsan balcaaw iyo dareenkaaga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عاوة وهبين مدن أو تاريخية وسند جوردي شني اللي إحنا هذه كسور ركتي هبين كي كوني سجال بقولي اللي إحنا كي الحلات كي تشون أي سومالان حرني مدي ذا كقاعدتي محمية دي إنجليزكا عاوة وين حينوت هاي هبين فرحات لي هبين دريم وعلي هبين دولة نمو إيو ودنيات إيو حرنمو إيو هيبد قرنمو أي نوبل لابنتي وهبينكي هيبديدا iyo sharaftayada iyo jiritaankayaga Soomaaliland aanu dhidibada u taagnayn calanka taagnay 26 Juun 1960 waa habeen taariikhda aan ka duugoobi doonin waa habeen aan la ilaawi doonin waa habeen si qiimo leh qulubta Soomaaliland shacbigeeda ugu jiraysa waa habeen sanad guurada 56aad ku soo beegaysa dib u curashadii oo taam noqonaysa sidaan Ilaahay ka rajaynayno sanadkan maanta iyo dhawaanahanba inay noqoto Soomaaliland dalkii ugu dambeeyay Afrika ama dalkii 50aad ee Afrika ka mid noqday qaramadii midooba iyo ururka Afrikaanka midowga Afrika iyo jaamacadda Carabta hadii la wasaaray ka rajaynayno waan rajaynayna ummadda reer Soomaaliland waxa leeyahay hambal iyo dhamaantii meel kasta joogtaan farxad ku ciida farxad ku damaashaada niyad sami iyo wadan jacayl iyo dawladnimo taamo ay Soomaaliland heshay ku bishaaraysta wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waay wasiir waad mahadsan